fadlan subscribe saar channelkan. soo dhawaada dukaanka Nilis Furniture Design bishan Maarso waxaan idin haynaa sariiraha caruuraha oo fahmiladu jeclaadeen waa Natura iyo Joy. Natura bishii waxaad ku helaysaa 20 oo kaliya halka Joy ay ka tahay 24 baan oo kaliya. Yes, waa run bisha tan Maarso. Natura 20 baan ayaa bishii dhiibaysaan. Joy waxaad iyaduna dhiibaysaa 24 oo kaliya. waxa kaliya oo laga rabaa inaad soo boqoto dukaanka waa Nilis Furniture Design waa 2734 Street Edmonton London muuqaalkana la wadaag asxaabtaada. Alo nibirbu kaseliye alo nibirbu kaseliye Ismaaciil Cumar gale dadkan waxay ka yimaadeen inta badan degmooyinka gobolka Banaadir halkana waxay u taagan yihiin soo dhaweynta Madaxweynaha dalka Djibouti Madaxweyne Ismaaciil Cumar geelle waxa ay qaadayaan heeso iyo gabayo kala duwan ay ugu tala galeen waxaana ay halkan joogan saacado aad u fara badan iyagoo diyaar u ah inay soo dhaweyntiisa ka qayb qaataan Soomaaliya kala go'do gobol bageesaday guryahayniyo wada dumeen guri la seexaynin gablankaya agoontoon lahayn guri la jiifayo inigeela waa tow guntaday unada gaarsiiyey mana gaabin waa tow dhigay gogashii weyneede Soomaali isugeeyayow gacal walaaleeyay Soomaali isugeeyayow gacal walaaleeyay dadka halkan isugu yimid waxaa ka mid ah haween odayaal dhalinyaro iyo qaybo ka mid ah caruurta kuwaas oo naftirkooda xiiso u qaba inay wax ka soo dhaweeyaan madaxweynaha dalka Djibouti sidoo kale mas'uuliin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda ayaa naftirkooda ku sugan halkan waxaanu joogaa madaxweynaha Djibouti oo jaceelka u qaba inaan soo dhaweeyo oo kaliilaad ku soo dhaweeyo hooyo Soomaaliyeed aanay madaxweynaha Djibouti madaxweynaha ku doorsanayo male aad iyo aad u qiireysanahay madaxweynaheena waa mid keenii labaad Soomaaliya kii koowaad waa Farmaajo kii labaadna waa Ismaaciil Cumar geelle habeeniya maalin waa u taagana ma jeclin in dhib yar dhinacaas uu ka soo gaaro meel walba dal iyo dibadba ilaahay caafimaad qeyr qaba ha siiyo waxaan saaka iskugu nimid inaan soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Madaxweyne Ismaaciil Cumar geelle farxadda ayaana keentay maadaama uu dalkeena yahay Soomaaliyana ay Djibouti kamid ah horena ay u go'day marka farxadaas aan keentay meesha saas u soo dhaweynayna waxaan u nimi madaxweynaha iyaga nala dhashay walaalkaya ah Ismaaciil Cumar geelle in aanu soo dhaweyno inta uu nala joogo magaalada maanta waxaan u taaganahay inaan soo dhaweyno madaxweynaheena Ismaaciil Cumar geelle
oo aan ku soo dhaweynayno waddankiisa Soomaaliyeed oo ah walaalkeena Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow waddankan muqdisho ku soo dhawow insha Allah tacaala waxaan u taaganahay inaan maanta ku soo dhaweyno gebi ahaanba wadadan hormarta madaxtooyada Soomaaliya ayay dadku labada qayba buux dhaafiyeen taas oo ku tusaysa sida dadku ay u jecel yihiin madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle soo dhaweyntiisuna ay ka socoto guud ahaanba magaalada tan Ali Ahmed warbaahinta qaranka